had iyo goor iyo waqti walba waxaan qabanna ayay runtii noqotaa nolosheenna. Dhagayso si aad u gaarto isku filnaansho dhaqaale iyo boqortooyada hantidaada. Waxaad ogaataa oo niyadaada gelisaa inaysan marnaba ku imaanin hantida dhacdo iyo laba dhacdo aad samaysay oo keliya, balse ay hantidu tahay mid ku timaada habka iyo qaabka aad u shaqayso, midaasoo ay ka dhalato waxyaabaha aad samayso maalin kasta, yacni caadooyinkaaga gaarka ah. Sidaas daraaddeed maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxa la yiraahdo caadada koowaad, taas oo ah mid ay ka wada siman yihiin dhammaan dadka taajiriinta ah. Haddaba adiga ma isku dayi kartaa inaad sii qiyaasto waxay tahay caadadan koowaad ka hor inta aanan kula wadaagin waxay tahay caadadan? Haddaba maanta waxaan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo qiso dhab ah oo waaqici ah oo ka tarjumaysa aniga ka shakhsi ahaanteeda. Waana qiso runtii aad ii taabatay bilowgii dhallinyarnimadeedii, waxaana ahaa waqtiyadeeda ka mid ah mid qaata oo ku tababarta fanka dagaalka, anigoona marmarka qaarna ahaa mid ku aalmeeteeya oo ku orda agagaarkii gurigii aan ku noolaa hortiisa. Balse maalin maalmaha ka mid ah anigoo ordaya keligay ayaa waxaa hal mar ka soo horjeedkii gurigeennii ku arkay nin oday ah oo aad u da'weyn oo markaas cawska jarayay agagaarka gurigiisii hortiisa, isagoona markaasna u isticmaalayay makiinadda cawska lagu jaro. Runtii wuxuu ahaa nin oday ah ay shaqadiisu u muuqatay mid gaabis ah, halka aan aniguna markaas ahaa nin dhallinyaro ah ay tamar badan ay ka buuxday. Kadib waxaan u dhaqaaqay dhankiisa oo waxaan ku idhi, mudane, wax caawimaad ah ma u baahan tahay oo ma kaa caawiyaa inaan kula jaro cawska? Wuxuu igu yidhi, waxaad tahay qof wanaagsan. Haa, dabcan. Kadibna waxaan si degdeg ah u bilaabay inaan ka caawiyo jaristii cawska. Durba markii aan dhammeeyey jaristii cawska ayuu intuu jeebkiisa uu gacanta geliyey ayuu wuxuu ii soo taagay $20 oo kaash ah. Waxaan qabtay lacagtii anigoo markaas yaaban oo eegaya isaga, ayaan waxaan nafteydii ku idhi, waaw, tani waa lacagtii iigu horraysay aan juhdigayga ku helo anigoo markaas qabtay adeeg. Run ahaantii arrintaas waxay gebi ahaanba iiga dhigneed dareen farxad oo aan la soo koobi karin oo aan si lama filaan ah kula kulmay. Intaas kadib waxaan bilaabay inaan isweydiiyo, ma u baahnaan karaan dadka kale in adeegan ama hawshan oo kale loo qabto? Balse halka dhib ee markaas i haystay ayaa wuxuu ahaa inaanan haysan lacag igu filan aan markaas ku iibsado makiinadda cawska lagu jaro. Muddo 2 usbuuc laga joogo kadib ayaan waxaan aaday ninkii odayga ahaa, waxaana weydiistay inay macquul tahay inuu i amaahiyo makiinaddiisa cawska, taas beddelkeedana aan usbuuc walba dhammaadkiisa aan ka jari doono cawska ka baxa gurigiisa hortiisa. Intaas kadib wuxuu igu yidhi, soo ma ogid wiilyahow dhallinyarada ah inaan ahay nin oday ah oo aad u da'weyn oo aanan awoodin inuu keligiisa jaro cawska? Dabcan waad qaadan kartaa makiinadda, laakiin fadlan si fiican u ilaali. Kadib waxaan qabtay makiinaddii anigoo markaas aad u faraxsan, waxaana ku idhi, dabcan mudane, waxaan u xafidi doonaa oo u ilaalin doonaa si fiican. Hadda isla waqtigan la joogo anigoonan bixin wax lacag ah ayaan waxaan helay makiinad ku fadhisa ku dhowaad $1,000 oo lacag ah. Intaas kadib waxaan bilaabay mashruucayga gaarka ah, waxaana igu soo dhacay fikrad ah inaan garaaco albaab kasta oo xaafadda ah si aan markaas u gaarsiiyo adeeggayga caws jarista. Waan ku salaamay mudane, waxaan ahay qof qabta adeegga caws jarista, kanna waa kaarkayga ee haddii aad u baahato wax adeeg ah fadlan isoo wac. Balse nasiib xumo ma jirin hal qof oo isoo wacay. Intaas kadib waxaan bilaabay inaan si fiican u fikiro oo aan la imaado hab iyo qaab ka duwan qaabkan. Runtii waxaa jiray naag ay saaxiibo ahaayeen hooyaday oo markaas xaafadda ku haysatay dukaan yar oo wax lagu daabaco. Waxaan la galay heshiis oo waxaan ku idhi, waxaan bilaabay mashruuc aniga ii gaar ah, waxaana hadda haystaa makiinaddaas yar ee cawska lagu jaro, mana haysto lacag aan xayeysiis ugu sameeyo shaqadeeda. Ugu dambayntii waxaan ku qanciyey inay dukaankeeda u samayso kaarar xayeysiin ah, isla markaana aan aniguna ka caawin doono inaan kaararkeedu ku baahiyo meel kasta oo xaafadda ah.
balse taas beddelkeeda waa inay xogta iyo macluumaadka shaqadeeda iigu qorto dhabarka dambe ee kaararka. Intaas kadib waxay igu tiri iyadoo markaa dhoola caddaynaysa, oo dabcan, oo maxaa diiday? Durbadiina waxaan bilaabay inaan garaaco albaab kasta oo xaafadda ku yaalay, anigoona isla markaana qaybiyey kumanaan iyo kumanaan xabbo oo kaarar ah. Kadibna waxaan si toosa u aaday xaafadda, anigoona ku kalsoonaa in 100% la soo wici doono telefoonkayga. Runtii waxaan ahaa nin dhallinyaro ah ay xamaasaddu qaaday, waxaana islahaa goordhow waxaad heli doontaa lacag badan. Kadib waxaan u degdegay dhankii xaafadda, waxaana ag fadhiistay meel u dhow telefoonka anigoo markaas sugaya in la soo wici doono. Runtii waxaan nafteeda ugu sheekeeyey inaan maanta noqon doono mid mashquul badan, oo xitaa waxaan islahaa maanta waqti uma heli doontid aad ku aaddo iskuulka. Waxaana bilaabay inaan istuso oo ku fikiro inaan noqon doono mid milyaneer ah. Maalintii koowaad ma jirin wax wicitaan ah. Maalintii labaad ma jirin wax wicitaan ah. Sidoo kale maalintii saddexaadna ma jirin wax wicitaan ah. Dhab ahaantii waxaan aqbali waayey oo rumaysan waayey xaaladdaas. Waxaana bilaabay inaan baaritaan kula dhaqaaqo xogtii ku qorneed kaarka. Si fiican, runtii wax walba waxay ahaayeen kuwo sax ah, oo nambarka telefoonkayguna wuxuu ahaa mid sax ah. Hal bil oo kaamil ah kadib ayaan waxaan helay hal nambar oo wicitaan ah. Waxaana isoo galay runtii xoogaa rajo iyo reereen ah. Balse inta aanan isdhiibin ka hor ayaa waxaa niyaddeeda ku soo dhacay oo soo xasuustay hal shay. Waxaana jeclaan lahaa sidoo kale inaan idinkana idin weydiiyo hal su'aal. Waxaad ii sheegtaa ma xasuusan kartaa sidii aan ku helay macmiilkaygii koowaad ee $20 i siiyey? Run ahaantii wakhtigaas wuxuu ahaa mid gebi ahaanba ka gedisnaa xaaladdan hadda la joogo. Sababtoo ah maalintaas anigoo samaynaya jimicsi orod ah, ayaan waxaan arkay qof u baahan in la caawiyo. Waxaana caawiyey qofkaas anigoonan marnaba ku bixin wax dadaal ah iyo wax shuruud ah. Balse waxa keliya ee markaas aan qabtay ayaa waxay ahayd inaan ahaa mid hawshaas qabtay ka hor inta uusan waxba dalban. Kadib waxaan aaday xaafad kale oo markaas u dhoweyd xaafaddii aan ku noolaa. Waxayna ahayd runtii xaafad aad iyo aad u qurux badan. Ugu horreyntii markii aan tagay xaafaddaas waxaan ka doortay mid ka mid ah guryaha ugu quruxda badan xaafaddaas, oo uu markaas cawska uga baxay si zaa'id ah. Run ahaantii cawskii ka baxay gurigaas wuxuu ahaa mid aad u dhaadheer, oo aysan isla markaasina aysan daryeelin dadkii lahaa guriga. Haddaba haddii aan ku weydiiyo adiga, maxaad samayn lahayd isla wakhtigaas? Durbadiiba intaan dhaqaaqay ayaan waxaan soo qaatay makiinadaydii cawska, waxaana wada jaray dhammaan cawskii ka baxay guriga. Kadib markaan dhammeeyey jaristii cawska, ayaan waxaan si tartiib ah u fadhiistay meel u dhow guriga, si aan markaas u sugo qofkii lahaa guriga. Sugitaan dheer kadib markii aan sugay ayaa waxaa hal mar ii soo muuqday gaari qurux badan oo soo jiidasho leh. Wuxuuna u muuqday gaariga sida inuu ag istaagi doono afeefka hore ee gurigii aan ag fadhiyey hortiisa. Balse nasiib xumo gaarigii ma noqon mid istaagay oo wuxuu sii watay socodkiisa ilaa uu wax yar kadib bilaabay inuu gadaal u soo laabto. Ugu dambayntiina waxaa gaarigii ka soo baxay qof haweenay ah, waxayna u soo dhaqaaqday dhankayga oo waxay igu tiri, maxaad ka qabanaysaa halkan? Sababtoo ah waxay aqoonsan weyday gurigeedii kadib markii aan ka jaray cawska. Kadib waxaan ku idhi magacaygu waa Daan, kanna waa kaarkayga. Waxaana ahay nin dhallinyaro ah shaqaysta shaqada caws jarista. Waxaana runtii arkay in cawska ka baxay gurigaaga uu u baahnaa in la jaro. Aniguna markaas waxaan qabtay wixii la iiga baahnaa inaan qabto. Intaas kadib waxay igu tiri, waa arrin fiican wiilyahow dhallinyarada ah. Runtii aniga ninkaygu waa mid mar walba safar badan. Aniguna mar kasta waxaan ahay qof ku mashquulsan shaqo. Mahadsanid. Kadibna intay boorsadeeda ka soo bixisay lacag $100 ah, ayay intay ii soo taagtay kadibna haddana mar kale igu tiri mahadsanid. Xaqiiqatan daqiiqadaas waxay ahayd daqiiqadii beddeshay nolosheeda. Sababtoo ah maalintaas waxaan bartay wax muhiim u ahaa nolosheeda. Mar walba aad isku daydo inaad qabato adeeg adigoonan waxba dalban, waxay kuu fududaysaa inaad si fiican ugu guulaysato hawsha aad rabto inaad qabato. Isla daqiiqadda aad si niyad ah u qabato hawshaas,
ayuu wuxuu caalamkaagu noqon doonaa mid dhinac kasta ka furfurma. Sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay inay tahay caadadan koowaad midda ay ka wada siman yihiin dhammaan dadka taajiriinta ah, halka aysan dadka intooda badan aysan ku baraarugsanayn. Mowduucina maantana intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum.